sidee u samaysan kartaa muuqaaladan shortis filimka ah oo la saaro codadka AI-ga Soomaaliga sida kuwan oo kaleeto. laba wiil oo yaryar ayaa si kama ah kubad uga soo tuuray daaqada baska. haweeney wadada maraysay ayaa si lama filaan ah kubaddii dib ugu soo laaday. kadib waxay isku geysay awooddeeda mar kale kubad kale ayay si sax ah ugu laaday daaqada baska gudihiisa. dhacdadan waxaa goobjoog u ahaa tababare kubadda cagta ah. wuxuu markiiba haweeneyda ku casuumay inay kooxdiisa kusoo biirto oo ay noqoto caawiye tababare. ugu horreyntii intaan muuqaalku gudagelin haddii aad u baahan tahay inaad baratid xirfad sida editingka iyo haddii aad u baahan tahay in lagu sameeyo ciwaan TikTok lacag u furan waxaa igala soo xidhiidhaa lambarka saaran bio-ga. Okay, marka ugu horeysa waxaad soo furanaysaa TikTok-gaaga ayaa soo furanaysaa. kadib waxaad xagga searching ku qoraysaa short film movies ayaa ku qoraysaa. qoraalkan hadda halkan kaaga muuqda ku qoraysaa. kadib waxaad raadinaysaa muuqaal. hadda midkan oo kaleeto waa English. muuqaalkan hadda u jeedid. waxaan ku dhufanaynaa sharta ayaa ku dhufanaynaa anagoo kasii tagayna copy linki. muuqaalkii ayaan soo copy garaynaynaa. waan ka soo baxaysaa oo waxaad imaanaysaa Google-kaaga ama Chrome-kaaga. kadib xagga searching ayaa waxaa ku qoraysaa TikTok script. Okay, markii aad ku qortid halahan waxaa ku dhufanaysaa website-kan labaad hadda calaamadan ku saaray oo logadan saaran tahay ayaa ku dhufanaysaa. kadib halkan ayaa waxaa ku baasti garaynaysaa linkigii aad soo copy garaysay halkan ku baasti garaynaysaa halkan ayaa ku dhufanaysaa. waxaad sugaysaa wax yar. Okay, ugu dambeyn uu noo qoray muuqaalkii subtitle-kiisa uu noo qoray oo waad u jeedaa. kadib waxaa ku dhufanaysaa copy text ayaa ku dhufanaysaa oo qoraalkii muuqaalka scriptiga dhammaan ayaa lagu copy garaynayaa. Okay, waa ka soo baxaysaa oo waxaa soo gelaysaa ChatGPT ayaa soo gelaysaa. kadib qoraalkii ayaad halkan ku baasti garaynaysaa. kadib hoos ayaa waxaa ku qoraysaa. hoos ayaa waxaa ku qoray qoraalkan Soomaali fasiixa iga dhig lambarada ku jirana ka reeb ayaan u qoray. kadib waan u dirayaa. kadib wuxuu isiinayaa qoraalkii oo nadiif ah ayuu isiinayaa oo uu ka saaray waxyaalihii ku jiray lambaradii iyo uu ku jiray uu ka saaray ayuu isiinayaa. Okay, qoraalkii hadda waan haysanaa waxaan ku soo noqonaynaa Chrome-ka ayaan ku soo noqonaynaa. kadib xagga searching waxaa ku qoraysaa Somali text to speak ayaa ku qoraysaa. Okay, wuxuu ku soo saarayaa website fara badan oo lagu sameeyo codadka AI-ga ah. Okay, waxaan dooranaynaa website-kan hadda calaamadan ku saaray ay ku qoran tahay Speakma ay ku qoran tahay ayaa dooranaysaa. markii aad website-ka sidaan usoo gashid kadib halkan ayaa ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay language hadda calaamadan ku saaray. kadib halkan hoose ayaa waxaa ka raadinaysaa Soomaaliya ayaa halkan Soomaaliya ka raadinaysaa. halkan hoose waxaa ka raadinaysaa Soomaaliya oo midaan hadda calaamadan ku saaray tan ayaa ku dhufanaysaa. markii aad sidaan ugu dhufatid waxaad dooranaysaa haddana halkan ayuu ku soo saarayaa Muuse iyo Ubax. haddii aad rabtid cod naag aad rabtid waxaad dooranaysaa Ubax. haddii aad Muuse cod nin aad rabtid Muuse aad dooranaysaa oo sidaan ayaa ku dooratay. Okay, waxaan tegaynaa ChatGPT ayaan tegaynaa. waxaan soo copy garaynaynaa qoraalkii ayaan soo copy garaynaynaa ilaa 2000 oo xaraf oo kale soo qiyaasaynaa. intaan oo kaleeto waa 2000 oo xaraf oo kaleeto waaye. tijaabay naga tahay marka halkan ayaa waxaan ku baasti garaynaynaa qoraalkii. wuxuu noqday qoraalkii 1055 uu noqday. marka dhib ma lahan tusaale ahaan lay anaga hadda idinku tusaynaa. marka lambarkan halkan ku qoranaya halkan ku qoraysaa 95099 inuu wax kale ku soo qoraa laga yaabaa. muhiim maahan inuu lambarkan ku soo qoro. marka waxaa ku dhufanaysaa generate audio ayaa ku dhufanaysaa. ugu dambeyntii codkii uu noo sameeyey oo waa kan waa la degaynaa oo halkan ayaa ku dhufanaynaa. halkan hadda calaamadan ku saaray ayaa ku dhufanaysaa. Okay, codkii sidaas ayuu kugu degay. ChatGPT ayaan tegaynaa. kadib waxaan ka soo bilaabaynaa baragraafkii uu noo joogay oo waa kan. haddana waa highlight ayaan soo saaraynaa inta hartay. intaan oo kaleeto way dhan tahay say ila tahay. halkan ayaa waxaa ku baasti garaynaysaa qoraalkii ayaa halkan ku baasti garaynaysaa. inkastoo dee qoraalkii uu naga kala go'ay balse dhib ma lahan. waxaan leenahay generate audio ayaan leenahay. haddana intaan generate ku dhufanin waa inaad qoraalkan halkan ku qortaa saa hore kugu sheegay.
qoraalkan halkan ku qoran waa inaad halkan kusoo wareejisaa. Okay, generate ayaan leenahay. Okay, haddana codkii uu noo sameeyey oo waan la degaynaa. Haddana waxaan ku dhufanaynaa halkan calaamadan downloadka ayaan ku dhufanaynaa. sidaas ayuu noogu degay codkeeni. Okay, hadda waxaan iswaafajinaynaa marka sidee isku waafajinaa muuqaalkii iyo codkii aan hadda soo sameynay AI-ga ahaa. Marka waxaad isku waafajinaysaa application-ka CapCut-ka ayaad imaanaysaa marka ugu horeyso. Okay, markaad soo gashid application-kaaga CapCut-ka waxaa ku dhufanaysaa new project. waxaa soo qaadanaysaa muuqaalkii koowaad oo aad soo degsatay oo filimka ah ayaad soo qaadanaysaa. aad ayaad soo leedahay. markii aad muuqaalka filimka sidaan u soo qaadatid waxaad iska xiraysaa codka ayaad iska xiraysaa oo halkaan ayaa ku dhufanaysaa mode click. kadib waxaa ku dhufanaysaa audio. kadib waxaa kasii tegaysaa sound meeshay ku qoran tahay. kadib waxaa kasii tegaysaa midaan labaad ayaa kasii tegaysaa adig. haddana waxaa kusii dhufanaysaa device ayaa kusii dhufanaysaa. halkan hoose ayaa waxaa ka raadinaysaa qoraalkii kow aad soo samaysay oo waa kan qoraalkii koowaad. kadib maadaama agaasimaha guud uu si aad ah qoraalkii waad ujeedaa qoraalkii koowaad oo waxaan ku garanay qoraalkii koowaad xoogaa u yaraa oo 1000 iyo adiga 49 ama 500 meelahaas uu ahaa u malaynayaa hadda. qoraalkii labaadna waa kan oo 2000 uu gaaray. marka kan waa kan ugu horeeyo. marka aad ayaan soo leenahay qoraalkii koowaad. markii aan aad soo dhahno waxaan rabnaa inaan iswaafajino marka muuqaalkan iyo waxaan rabnaa inaan iswaafajino codka. agaasimaha guud uu si aad ah u necbanaa dumarka isqurxiya. shaqaalihii dumarka ahaa waxay si degdeg ah uga tirtireen isqurxintii wejiyadooda isla markiiba ay maqleen inuu ka soo laabtay fasax. kadibna dhammaantood waxay wada xirteen dhar rasmi ah iyo jaakado iyagoo isu diyaarinaya inay soo dhoweeyaan agaasimaha guud. hase yeeshee shaqaalaha ka mid ah ma aqoon xeerarkan. Okay, waxaa muhiima mar walbo inaad ka saartid isbeesiyada u dhaxeeya codka inaad ka saartid. intaadan isbeeska ka saarin horta codkaaga waxaa u samayn kartaa effect ayaa u samayn kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa sida muuqaalkii hore aan kusoo aragnay oo kaleeto cod oo iska yar oo iska adiga micnaha ma garatay. marka halkaan aan ku dhufanaynaa audio effect. Okay, waxaan ku dhufanaynaa midkaan hadda calaamadan ku saaray ku qoran tahay sweet. maadaama midkaan ayaa hadda shabahayo ma fahantay. marka halkaan aad ka gaabin kartaa waana ka dheerin kartaa 61 ama 65 meelahaas ayaan geysanaynaa. maadaama agaasimaha guud uu si aad ah u necb codkana waxaan ku daraynaa speed yar ayaan ku daraynaa oo ilaa 0.2 ayaan geynaynaa. maadaama agaasimaha guud uu si aad ah u necbanaa dumarka isqurxiya. shaqaalihii dumarka ahaa waxay si degdeg ah uga tirtireen isqurxintii wejiyadooda isla markiiba ay maqleen inuu ka soo laabtay fasax. meelahan babanaanna waxaa waa iska saaraysaa saa horey kugu sheegayba. maadaama aad u jeedid ficilkii oo filimka aad u jeedid wixii la sameynaa u jeedid codka aad maqlaysid waxaad fahmaysaa cod walba meeshii looga talagalay aad fahmaysaa. marka isku day inaad macnaha isla siintid muuqaalka iyo codka inaad isla siintid isku day. marka codkaas kalena saas u soo geli effectiga sidaas ugu bedel. marka sidaas ayaa loo sameeyaa muuqaaladan oo kaleeto. hadda muuqaalkii wuxuu ku soo baxay sida tan. maadaama agaasimaha guud uu si aad ah u necbanaa dumarka isqurxiya. shaqaalihii dumarka ahaa waxay si degdeg ah uga tirtireen isqurxintii wejiyadooda isla markiiba ay maqleen inuu ka soo laabtay fasax. kadibna dhammaantood waxay wada xirteen dhar rasmi ah iyo jaakado iyagoo isu diyaarinaya inay soo dhoweeyaan agaasimaha guud. hase yeeshee gabadha cusub oo shaqaalaha ka mid ah ma aqoon xeerarkan. Okay, marka waad u jeedaa oo sidaas ayaa loo sameeyaa muuqaaladan oo kaleeto. haddii aad muuqaalkan waxaan ku faa'iideeyay fadlan like ha kiiloobin mahsanid.